kulan aqoon isweydaarsi ah oo hal maalin socday ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika kaasoo looga hadlayay marxaladaha ay ku sugan yihiin Soomaalida ku nool guud ahaan dalkani Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town. Kulankani oo ahaa mid laha ahmiyad gaar ah oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adda Somali Refugee Aid Agency oo ka dhisan dalkani Koonfur Afrika iyo Southern Media Institute waxaa ka soo qayb galay xubno muhiim ah oo ka kala socday ururka suxufiyiinta Soomaalida ee wadankani Koonfur Afrika, Somali Journalists of South Africa, guddiga golaha fulinta jaaliyadda Somali Community Board magaalada Cape Town iyo waliba marti sharaf kale oo badan. kulankan ayaa waxaa furay Christina oo ka tirsan madaxa ururka Southern African Media Institute waxayna ka hadashay ujeedada shirkani loo agaasimay oo ahayd in si cilmiyeysan looga doodo sidii dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika ay wax uga qabsan lahaayeen isla markaana u noqon lahaayeen kuwa ugu horumarsan dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika. kulankan ayaa intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay sawirro iyo muuqaalo laga arkayay shakhsiyaad goobta joogay oo waxyeelo kala duwan loogu geystay gudaha wadankani Koonfur Afrika. sidoo kale ayaa waxaa kulankani lagu lafaguray erayada xambaarsan ajaanib nacaybka iyo marka lagu yiraahdo qofka Soomaaliga waxa uu dareemayo shakhsi ahaantiisa, taasi oo noqotay mid ay si aad ah u dhibsadaan Soomaalida iyo waliba dhammaan dadka qaxootiga ku ah wadankani Koonfur Afrika, isla markaana dadka wadaniga ay u adeegsada erayadaasi inay tahay mid ay ku doonayaan inay ku duraan ama ay ku liidaan dadka aan u dhalan wadankani Koonfur Afrika. hay'adda Somali Refugee Aid Agency oo kaalin weyn ka geysatay caawinta iyo waliba sare u qaadista aqoonta dadka Soomaaliyeed ee degan wadankani Koonfur Afrika gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Cape Town, waxaana dhowr bilood ka hor hay'addu ay bilowday inay wax baraan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed aan lahayn wax aqoon ah isla markaana ay ku adag tahay inay ku biiraan goobaha waxbarasho aan looga hadlin sida badan luqadda afka Soomaaliga, taasoo ay haatan ku doonayso in ay dadaaladeeda sare ugu qaado dhanka luqadda Ingiriiska si qofka Soomaaliga aan ugu baahanin inuu u wato qof u turjuma marka uu aado maxkamadaha iyo waliba goobaha sharciyada laga qaato. waxaa xusid mudan in sidoo kale kulankani lagu soo bandhigay horumar ay sameeyeen Soomaali fara badan oo heer fiican ka gaaray nolosha iyo waxqabsiga xagga ganacsiga ee dalkani Koonfur Afrika. gabagabadii kulankani ayaa ururka Southern African Media Institute waxa uu ballan qaaday in ay arrinta ku saabsan dhibaatada qaxootiga loogu geystay ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika ay wax badan oo xaqiiq ah ka qori doonaan isla markaana ay ku soo daabici doonaan qaar ka mid ah warbaahinta wadankani ka howlgasha, isla markaana guud ahaan wadanka laga ogaan doona sida loola dhaqmo dadka magangelyo doonka ee ku nool wadankani Koonfur Afrika, iyagoo markaasi sheegay inay la kaashan doonaan golaha jaaliyadda Somali Community Board of South Africa iyo Somali Journalists of South Africa, sidoo kale hay'adda Somali Refugee Aid Agency. Abdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.